jawiga adiga aad ku sugan tahay waxaa markaas ayada aad matalaysid baa qurux badan inaad u ekaatid taasabe waad ku mahadsan tahay barnaamijka haweenka oo maanta igu casuumtay aniga oo u taagan magaca hooyooyinka sax waxaa kaloo jirtay wixii kaloo iigu yaabka badnaa Soomaaliyan ku arkay magaala madaxda Muqdisho baan hadda adiga waxa laga jooga 7 bilood baan martagay wixii iigu yaabka badnaa arkayna waxay ahayd aniga hadda dhulka hadda xamar saa uma tilmaami karo laakiin waxaan arkay wado highway oo dad marayo oo gawaari marayo oo geel marayo oo bajaaj marayo haddana aan shil ka dhacayn ما شاء الله ما شاء الله وحي igu yaabay oo geela markii hoonka la yeeriyo oo wadada labada gees fiirinayo waa xayawaanka waa xoolahi waxa markii hoonka loo yeeriyo ama wadada ka baxaya ama ka istaagayo tii igu yaabay badnaytaas ay ahayd tii igu farxad badnayna waxay ahayd maalinka aan xamar loo hadhigay وهجاك haddii aan sheekada xamar aan ku galo qoraxda inoo dhacayso وحير إنه meel aan zaaid ugu hamuun qabay oon baahi badan u qabay aniga oona tagin baan ka sameeyay gabayo badan oon leeyahay hadduun xaakim maya dhig xamar dhagta un baan ka maqlay in xamar la yiraahdo magaalo madaxda waxaan leeyahay xamar ay xul qaranay xiisi iyo wanaag iyo xub iyo udgoonay sida xaraf quraameed qalbigay ku xiranay cadow laga xafiday xaasid laga dhameeyay kuwa xuma ka taliska midii laga xirxirayay xeendaab adeeg badan midii lagu xafiday xamar ay xigtiyo qolo midii laga xanimayay ما شاء الله xamar ay xul qaranay xiisaan qaba badan qulubtaad xambaarto naftaydaad xawilato waxaan jiraa xuduud dheer waa qaxootiga waana soo xirxiranahay hadduun xaakim maya dhihin hawadan dhaxiibiyo xawli baan ku iman xamar xalaniya afgooyo xamar weyn dhammaanteed xeebta liida oo wacan sharaf lagu xambaariyay xasan iyo farmaajo xiisiin ugu badan waana xilligii madaxdan nabad iyo nolol xisbigan ay hadda qabteen bay ahayd anigoo gabayo badan ka sameeyay oo xataa marar waxaan sameyn jiray baag baan dhabarka saaranaya waxaan niyeysanaya anoo xamar u duulay oo safar socda ahba iska markii aan safarkaygaas iyo baagayga xirxirtaa waxay igu soo dhacaysaa inaan xamar u gabiyo waxaan ayaan iri xamaray waan soo xirxiranahay anoo qaba xiisahaaga baan leeyahay markii aan xamar tagayna waxaan iri xamare ma nabadba xoogii dalkayga ay xamaray ma nabadba xub iyo udgoonay xamaray ma nabadba xiisataan u qabay xamaray ma nabadba xaakimtu i keenay xamaray ma nabadba xasan iyo farmaajo xageed iga jirtaan haatan waayo hadalkii hore oo aan markaan inta joogay waxaan iri xasan iyo farmaajo in aan raadinay haddaan xamar tago xiisihii aan u qabay markaan aadan cadda international airport aan taaganahay baan ku iri xasan iyo farmaajo xageed iga jirtaan haatan iyo waa dhan ay iga jiraan maba garanaynin aad waa jecleed inaad la kulanto runaantii saaid haddii halkaas aan ugu soo noqono waxaan arkay clip adiga laga duubay oo la kulantay gabar ajaanib ah calanka Soomaaliya xiran balta ayada ah maxaa kugu dhali inta gabadh istaajiso oo ku dhahdo sidee bay wax jiraan maxaad kala kulantay wallahi horta hada clipkaas inta badan social media way hadal hayaan waxaan arkay commentiyo badan oo la leeyahay waa prank laakiin anigu waxaan aaminsanahay calankayga inaanan prank ku sameynin haddaan prank sameynayo dadka horta barankiga sameeyana ma ihi balse haday igu waxyaabo kala iska jiraan sameeyo waxyaalo kale ku sameyn lahaa inaba aniga ciideyda iyo calankayga iyo madaxdayda iyo dadkaygaba baranka kuma sameeyeen waxay ahayd maalin jamco ah khudba jamca lagu jiray aniga iyo waxa isla soconay wiil yar oo jamcada u socday oo qamiis xirnaa annagoo wadada iska heena waxay inaga soo baxday gabar calanka dabada ugu xiran yahay sax calanka wuu kala qurux badan yahay in meel lagu xirto aniga garabbaha iyo madaxa meel ka hooseysa in lagu xiro ma jecli inkastoo hadda ay asxaabta ku leeyihiin meel kastaa lagu xiran karaa dabadaa lagu xiran karaa sariirna waa lagu guulan karaa ha balse aniga baaq horaan u diro waxaan ku iri sariiraha falal badan baad ku sameysaan calanka ka dhaala
yuusan hadlin hadduu hadli rabaayo masiibo badan ay haysataa dhibaato la soo iyo dhibaato dadba waxay ku leeyihiin calanka hadduu wax taraya dhiigga badan oo daatan ma uusan daateen calanka asaga sabab uma aha inuu dhiigga daato calankaaga waa astaan qaran oo lagugu aqoonsan karaa oo lagugu aqoonsanayo aniga gacantayda iyo meel kasta inuu ku xirnaadaan jeclahay magaca Soomaaliyeedna waan ku dhaartaa waayo haddii aad 10 baasaboor oo dhalashooyin kale aad haysatid maalinkii lagu dhaho dalkan umaadan dhalana ka bax meel kale ma haysatid waa Soomaali ka baa laga soo dhaweyn karaa baa laga soo dhaweynaya oo lagugu dhibeen wax yar waxaan kan ka salaamaya Ajax oo hore iigu yiraahday kusoo dhawow igu yiraahday masraxa furan ayaan ay universal raacay wuxuu yiri marka dalkaaga hooyo yiri kuleel ma leh baahina ma leh waxyaalo badan oo ii sheegay baa anoo masraxa taagan ilan iiga timaaday waayo dhul shisheeye marka aad 20 sano ku dhawaad taagnaatid oo dhulkaaga hooyo inta tagto lagu yiraahdo ereygaas waxyaalo badan baa kugu soo baxay marka gabadha waxaan uga furay calanka meel aan munaasab ahayn buu ugu xirnaa waxayna ahayd qof ajnabi ah oo aanan garanaynin calankan qiimaha uu leeyahay